وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا bulsho kasta oo adduunka qaybaha dadkoodu ka kooban yahay waxay isugu jiraan rag iyo haween waxa inta badan la isku raacsan yahay in tirada haweenku mar walba ka badan tahay tan ragga iyadoo sidaas ay tahay haddana muuqashada bulshada dhexdeeda waxaa calanka u sita ragga siyaabo badan ayaa la tilmaamay in arrintaasi ay keentay waxaana ka mid a ka qayb qaadashada waxbarashada oo fursadaha haweenku ay ka yar yihiin kuwa ragga tusaale fiican waxaynu waqtiyaan sidaasi u fogeyn bulshada Somaliland umay furfurnayn in gabdhaha wax la baro xitaa diinta islaamka ahaatee balse kontonkii sanadoodii ugu dambeeyay ayaa la arkay in haweenku siisa soo taraysa ay kaalin muuqato ugu leeyihiin ka faa'iideysiga waxbarashada waxaana ay tani keentay in bulsho badan gaar ahaan waalidku ka garaabaan faa'iidada laga helay hablihii waxbartay kuwaas oo si muuqata uga dhexifaya bulshada dhexdeeda waxaan muran ku jirin haweenku yihiin laf dhabarta iyo dubdhaxaadka bulsho kasta waa warshad wax soo saar iyo dugsi barbaareed oo soo carbiya jiilal waxtar fiican yeesha haddaba barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa muhiimadda ay hooyada waxbarata u leedahay ubadka qoyska iyo qarankaba arinta waxaanu ka wareysanay Maxamuud Daahir Cumar oo shahaadada labaad ee maamulka iyo maareynta waxbarashada ka qaatay jaamacadda Islamic University dalka Uganda ahna qoraabadan ka faaqida waxna ka qoraarimaha waxbarashada waxa uu dhawaan wax ka qoray faa'iidada hooyada waxbarata ay u leedahay qaranka su'aashii ugu horeysay aan weydiiyay Maxamuud Daahir Cumar waxay ahayd bal inuu ka warramo waxa ku dhaliyay in wax ka qoro muhiimadda hooyada waxbaratay runtii waa su'aal aad u muhiim ah walaal inaynu inta badan wax ka qorno arrimaha dhinaca bulshada oo aynu xooga saarnaa waxay wax weyn u taraysaa bulshadeena taas ayaa dareenkayga aad iyo aad u soo jiidatay waxaan mar walba jecelahay arrimaha dhinaca bulshada inaan wax badan ka qoro oo aan dareensiiyo ummadda wax badan oo laga yaabo dad fara badan inaanay aad u dareensanayn run ahaantii arrimaha bulshada inaad wax ka qortaa waxay chance siinaysaa in badan ama waxay noqonaysaa wacyigelin aad u ballaaran oo bulshadeena qaybaha kala duwan gaadha waan gartay markaan si guud uga hadalno muhiimadda hooyada waxbaratay ay bulshada u leedahay inagoo qaybo fara badan oo kala qaadi doona oo hadday noqon lahayd dhinaca ubadka dhinaca dalka qoyska iyo hantida qoyska intaba inagu kala qaadi doona bal haddana markaad eegto muhiimadda hooyada waxbarata ay leedahay haddii aad taabato maxaad oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore hooyooyinka Soomaaliland oo dhammaan walaal aad ugu mahadnaqaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in hooyooyinka Soomaaliland jannada geeyo waayo abaal mudan bay u galeen ubadkooda iyo dadkeena iyo guud ahaanba intaa kadib hooyooyinka iyagu dhammaantood wada qiimo leh oo qiimahoodu aad u sareeyo hooyada oo aan qiimaheeda halkan lagu soo koobi karin haddana walaal qiimo gaar ah kulli hooyada waxbaratay qiimo gaar ah ay u leedahay bulshada iyo qaranka hooyada waxbaratay haddii tusaale ahaan kale hooyo qura wax la baray waxay ka dhigan tahay in bulshadii oo dhan wax la baray tacliintu tusaale ahaan kale waa mid ka mid ah meelaha lagu xoojin karo hooyooyinka tacliinta hooyada oo sare loo qaadaa waxay bulshada u horseedi kartaa walaal isbedel dhinac walba ah dhinaca horumarinta waxaanay faa'iido gaar u leedahay ilmaha hooyadu ay korinayso oo dhinacyo badan marka laga eego run ahaantii haddii dhaqaale la eego haddii bulsho ahaan la eego haddii tarbiyadii carruurta iyo ubadkii la eego haddii horumarkii ilmaha la eego inagoo aad ugu daadegi doona mid dhammaantood hooyada waxbaratay waxay u leedahay faa'iido gaara waxaanay kow ka tahay horumarka dhinaca bulshada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay aqoonta hadday tahay horumarka guudba hooyada walaal waxay u leedahay yacni muhiimad aad iyo aad u ballaaran ayay u leedahay bulshada waxaana inta badan dhacda hooyadu waxay walaal saameyn xooga ku leedahay bulshada marka qoyska iyo bulshada labadaba marka qoyskii maadaama ay saameyn xooga ku leedahay waxa aad iyo aad u suurtagal ah haddii hooyadu ay horumarsan tahay waxbaratay in qoyskii uu horumaro haddii qoysku horumarana bulshadii guud ahaan way horumaraysaa marka walaal muhiimadda hooyadu waxbaratay ay u leedahay bulshadeenu horta run ahaantii maaha mid aynu halkan kusoo koobi karano laakiin guud ahaan markaynu eegno waxay muhiimad u leedahay ilmihii waxay muhiimad u leedahay caafimaadkii bulshada waxay muhiimad u leedahay qoyskii waxay muhiimad u leedahay dhaqaalihii guud ahaan dhinac kastoo ka eegnaba muhiimad aad u ballaaran bay walaal u leedahay bulshada waan gartaanu sii kala qaadqaadno Maxamuudow bal haddii aynu eegno muhiimadda ama faa'iidada hooyada u leedahay ubad maxaan ku qeexi karnaa bismillaahir rahmaanir rahiim dhinacyo badan baynu walaalka eegi karnaa marka uu ilmuhu yar yahay hooyada waxbarad waa marka ugu badan yahay uu ilmaha yar ka faa'iideysto waayo wuxuu helaa taageero dhinaca waxbarashada ah iyadoo guriga lagu baro aasaaska tacliinta
ee bilowga ah tusaale ahaan oo kale ilmaha hooyadii wax baratay intaanay iskuulka geyn waxa laga yaabaa in loogu dhigo akhriska iyo qoraalka waana halka ay ka bilaabanto iskuulka koobaad wey marka waxaan odhan karnaa marka koobaad walaal hooyadu waa iskuulka koobaad ee qofka oo hadday wax baratayna waxa hubaal ah ilmaha in guriga uu ka helayo aqoon ka horeysa dhinaca iskuulka isla markaa hooyadu waxay dhistaa kalsoonida ilmaha hooyada wax baratay inta badan waxa laga yaabaa inay dhinaca fara badan wax ka eegto inaana ilmihii dhaliishii ku badin waxa laga yaabaa inay dhisto kalsoonida ilmaha dabeetana ay bulshada u soo saarto ilmo isku kalsoon oo tacliintiisuna ay fiican tahay waxa kale saameyn ku yeelataa waxa weeye walaal maxsuulka tacliinta ilmaha heerarka kala duwan yani waxa weeyaan ilmahan soo baxaya heerkiisa tacliinta kow waxa ka ah hooyada wax baratay ilmaha hooyadii ay wax baratay hubaal waxa ah inuu ka tacliin fiicnaanayo ilmaha kale waayo wuxuu helayaa caawin gurigiiya buu helayaa hooyadu waxay waqti fara badan gelinaysaa tacliintii ilmaha tusaale ahaan oo kale haddii loo soo diro leyli ama tusaale ahaan oo kale exercise loogu soo diro gurigii hubaal waxa ah hooyadii mutacalimadda ahayd ee guriga joogtay inay wax badan ka caawinayso ilmihii marka halkaa walal waxaynu ka garan karnaa waxa weeye ilmihii inuu ka helayo caawimo dhinacii waxbarashada uu ka helayo maadaamay hooyadii tahay qof wax baratay hooyada tacliinta lihi ilmaha waxay bartay akhlaaqda wanaagsan iyo sida uu dadka ula dhaqmayo marka ilmihii ay soo saartaa wuu aad buu uga fiicnaanayaa ilmihii ay dhashay hooye aan tacliin lahayni marka hooyada wax baratay waxay yacni ilmaha u tahay role model ku dayashay u tahay hooyadii buu ku dayanayaa dabeetana isna wuxuu noqonayaa tusaale fiican oo bulshadii ku jira ayuu noqonaya sidaas weeyi waxa kale aan doonayaa inaan halkan kugu dareensiyo walaal waxa jira dee adduunyada inagu meelaha aad kaga hooseyno waxa kamid ah cilmi baadhista adduunyada waxa la sameeyaa cilmi baadhis scientific ah waa la soo taabtaa waxaan yacni la rabo in la ogaado faa'iidooyin imika tusaale ahaan kale haddaynu soo qaadano cilmi baadhis ay sameeyeen khubaro baadha dhinaca tacliinta oo la yidhaahdo education initiativesku waxaa lagu ogaaday 9% ardayda iskuulada sare ee tacliinta darajada fiican ka keenta in hooyooyinkeeda ahaayeen qaar wax bartay isla markaana ay saameyn weyn ku leeyihiin noloshooda marka taasaaba inoogu fulan cilmi baadhista la sameeyey inkastoo in anagu yacni researchkeen iyo cilmi baadhisteenu ay aad u hooseyso haddana hubaal waxa ah haddii aynu sameyno cilmi baadhis inagoo ah reer somaliland aynu dalkeena ku sameyno hooyada wax baratay iyo saameynta ay ku leedahay ilmaha inay inoo soo bixi lahaa faraqa u dhexeeya ilmaha ay dhashay hooyada aan waxba baranin iyo ilmaha ay dhashay hooyada wax baratay waxaana hubaala xagga yacni howlqabadka performanceka sarreynta inuu aad u sarreeyo ilmaha hooyadii wax baratay sida cilmi baadhista nimanka sameeyey education initiativeskuba ay walaal inoo sheegayaan waan gartay taasi waa ay faa'iidadii hooyada wax baratay u lahayd ubadka markaynu ka warramayno guud ahaanba qoyska maxay hooyada wax baratay u yeelan kartaa waay aad baad u mahadsantahay cabdicasiis waan kuu mahadnaqayaa run ahaantii qoyska guud ahaan markaynu ka eegno mar haddii ilmihii ay wax baratay waxaynu tusaale labada soo qaadanayna xagga caafimaadka hooyada wax baratay waxay faa'iido u leedahay caafimaadka ilmaha waxay hubisaa in ilmaheedu helay tusaale ahaan oo kale tallaalkii u baahnaayeen kale taasu markaa waxay ka hortegaysaa waxa weye waxyaalo fara badan oo dhinaca caafimaadka ilmaha ka hor iman lahaa guud ahaan qoyskiina waxa laga yaabaa inay wacyigelin ka samayso oo ay caafimaadkoodii qayb muhiima ka qaada dhinaca kale haddaynu ka eegno sidaan kuu soo sheegay dee daraasado fara badan baa adduunyada laga sameeya hadday noqoto dhinaca caafimaadka hadday noqoto dhinaca waxbarashada imika tusaale ahaan oo kale haddaynu tusaale usoo qaadano daraasad ay sameeyeen yacni ay samaysay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo kale oo ay ku samaysay 64 dal waxaa ka soo baxday يعني عافمادك هويدا waxbaratay muhiimada ay leedahay baan doonayay inaan sharxee in hadii 1% la kordhiyo tacliinta haweenka oo hooyadii ah ay suurtagal tahay inay yareyso caafimaad darrada carruurta marka la barbar dhigo in la kordhiyo 1% tirada dhakhaatiirka dalalkan researchka lagu sameeyay marka taas waxay noo muujinaysaa wax weey hadiiba caafimaad la rabo in laga shaqeeyo inay kaba horeysaba ama ay ka faa'iido badan tahay in hooyadii wax loo baray waayo ka hortag buu noqonaya inta badan waxa la yiraahdaa ka hortag wuxuu ka fiican yahay cilaajka iyo ka tabataga marka imika cilmi baarista la sameeyay laftigeedu waxay muujinaysaa dalalka haweenkooda ay wax barteen ama hooyooyinkooda ay wax barteen inay caafimaad ahaan ka fiican yihiin dalalkii kale ama ayba ka fiican tahay in la kordhiyo dhakhaatiirta in hooyooyinka wax la baro ayaa aad uga fiican de cilmi baarista lagu sameeyay 46 ka dal taasa ka soo baxday halka waxaynu ka garan karnaa walaal waxa weey faraqa u dhaxeeya hooyada tacliinta leh iyo hooyada aan waxba baran ee dhinaca caafimaadka iyo faa'iidada ay u kala leeyihiin bulshada guud ahaan marka ilmihii faa'iido u leedahay caafimaadkii ilmaha iyo guud ahaan bulshadiina faa'iidadaas u leedahay de waxaana laga sameeyay runtii cilmi baarista fara badan oo de adduunyada ay ka sameeyso la soo taabtay waxa la yiraahdo scientific research ama cilmi baaris la soo taabtay oo lagu ogaaday marka walaal waxa weey haday noqoto caafimaadkii haday noqoto
noqoto ilmihii waxbarashadiisa kala wanaagsanaantii kala sarreynta carruurta intaaba hooyadu waxbaratay waxay runtii ku leedahay saameyn la yaab leh bay ku leedahay waxaanay wax weyn ka bedeli kartaa hooyada waxbaratay waxa weeye caafimaadka bulshada caafimaadka qoyska iyo waxbarashada carruurta oo ay heer fiican gaarsiin karayso waa tahay maxamuud waxaa jirta in hooyooyin fara badan ay dibadda usoo baxeen oo ay suuqa usoo galeen sida ay usoo saari lahaayeen wixii ubadkooda ay ku quudin lahaayeen kadib markii aabbayaal fara badan ay gabeen mas-uuliyaddii qoyska ka saarnayd bal waxaad ka warantaa hooyada waxbaratay iyo doorka ay ku yeelan karto arrintaas waay bismillaahi araxmaan araxiim ilaahay khayr siiyo hooyooyinka somalilan run ahaantii waxay door muhiima kaga jiraan bulshada iyo qaranka door muhiima kaga jiraan waxay qayb weyn ka yihiin waxa weeye shaqaalaha dalka way inoo shaqeeyaan marka hooyadu iyadoo shaqaysa haddayna waxbaratayna waa laba faa'iido isa saaran wey dakhligii reerka sare u qaadaysa oo waxa laga yaabaa hooyadii markay waxbarato sidii ay ugu leedahay faa'iido ilmaha iyo caafimaadka ay reerkiina mar labaad faa'iido ugu leedaho qayb weyn waxay ka tahay waxa weeye dakhli kordhintii reerka oo tusaale ahaan oo kale iyagoo hooyooyinku suuqa usoo baxo shaqaynaya dee waxaaba jiro reero dhisanoo labadii qofa shaqeeyaan reerkaa dhisani dee way ka dakhli badan yihiin reerihii kale marka walal waxa weeye hooyadu waxay qayb muhiima ku tahay waxa weeye dakhliga iyo dhaqaalaha reerka soo gelaya waxaanay aad yacni kordhin kartaa waxa weeye heerka yacni xataa waxay qayb ka qaadan kartaa waxa weeye heerka shaqa tagga dee yacni carruurtii maadaama ay dee ilmihii wax barayso laakiin markaynu xagga dhaqaalaha ka eegno door muhiimay walaal ku leedahay waxaana inta badanba dhacdaba hooyooyinku inay ka safety badan yihiin ama ay ka yacni kaydin fiican yihiin ragga markaad barbar dhigto waayo waxa laga yaabaa $100 ama $200 ee familiga ay hooyadu usoo shaqayso inaanay meel kale iyo yacni meelo kale ka aadin baa laga yaabaa ay reerka toos ugu galaan halka laga yaabo in ninkii markuu soo shaqeeyo dadka balwadaha loo kale tusaale haddaynu usoo qaadano laga yaabo inay balwad lacagtii kaga baxdo marka xaggii dhaqaalaha laftigeeda dee hooyada waxbarata aad iyo aad bay ugaga fiican tahay yacni waxa weeyaan dhigeedii ama yacni labkii aad bay ugaga fiican tahay marka runtii door muhiima weeyaan walaal cabdicasiis ayay ka qayb qaadata hooyadu arrinta dhaqaalaha waan karta haddii qoyska intaanu kaga nimaadno iyo hooyada waxbaratay faa'iidada ay u leedahay bal dhinacii bulshada iyo waddanka markaynu eegayno hooyada waxbaratay kaalin noociyey bay ku yeelan kartaa بسم الله الرحمن الرحيم وحوي ولا وحوي ودنك hooyada waxbaratay waxay ku leedahay kaalin aad iyo aad u weyn waxay qayb muhiima ka tahay waxa weeye imka tusaalahan waddankeena haddaynu tusaale usoo qaadano dumarkeenu waxay waxbartay inta u badan ee waxbaratay waxay qayb muhiima ka soo qaateen halgankeena bay qayb muhiima waxay hooyada waxbaratay waxay u adeegtaa dalkeeda waxaanay soo saartaa waxa weeye muwaadin aqoon leh oo maskax furan marka taa laftigeedaaba ah hil ay waddankii yacni u samaysay hooyadii weeye hooyada waxbaratay waxay bulshada ku soo biirisay waxa weeye ilmo si fiican loo koriyey oo caafimaad qaba oo ay ilaalisay weeye hooyada waxbaratay walaal waxay yaraysaa faraqa u dhexeeya waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha yacni waxa weeyaan si ay yacni iskugu dhowaadaan taasi oo inta badan marka la eegayo dhaqaalaha wadamada caalamka iyo adduunyada wadamada labkooda iyo dhadigooda bay waxbarteen dhaqaale ahaan aad uma kala fogaan laakiin hadduu gaab weyn ku jiro yacni wiilasha iyo gabdhaha tacliintooda halkaa waxaa laga yaabaa in dhaqaalahoodu uu hoos u dhaco marka maadaama hooyadii wax fahmayso waxaa laga yaabaa wiilkii iyo gabadhiiba inay iskuulkii ku wada darto taasna waxay meeshii keenaysaa waxa weeyaan inuu noqdo yacni waddankii mid ka horumarsan waxbarashadii gabdhaha iyo waxbarashadii wiilasha يعني haddaynan kaba eegin dhinaca shaqo taga hooyadii waxbaratay hadday gurigii joogto de waxay soo saaraysaa waxa weeye ubad waxbartay oo yacni waddanka iyo dadkaba iyo dalkaba yacni anfacaya hooyada waxbaratay waxay yacni soo saartaa waxa weeye jiil cusub ay soo saartaa oo waddankii u soo saaraysaa hooyada waxbaratay waxay ka qayb qaadataa nabadgelyadii waddankii waayo marka ilmihii wax la baro waxay aad saameyn ku leedahay waxa weeye nabadgelyada waddankii oo tusaalahaan kale haddii drop outsku ay bataan waddanka xaggii security iyo ammaankii saameyn bay ku leedahay marka hooyadii si dadban bay uga qayb qaadanaysaa yacni ammaankii waddanka oo ay yacni hooyada wax baratay waxa ay qayb ka noqon kartaa waxa weeyaan koror ku yimaada carruurta iskuullada tegaysa enrollmentka waxaan leedahay oo tusaalahaan kale waxa laga yaabaa hooyadu inaana ilmaha guriga ku haysan maadaama wax barato dabeetana ay iskuulkii geyso taasina waxay keenaysaa in enrollmentka yacni waxa weeyaan diiwaangelinta iskuullada ee ardaydu ay sare u kacdo marka run ahaantii walaal hooyadu waxay yacni ku leedahay qaybaha muhiimka ah bay ku leedahay isla markaana marka ay enrollmentkii uu sare u kacay ciyaalkii iskuulka dhiganaya sare u kacaan waxaa yaraanayay rabshadihii iyo wixii yacni dhex marayey carruurta marka bulsho ahaan waa la isla soconaya waa la korayaa koritaanba halkii bulshada walaal cabdicasiis ka imanaya waana sidaa runtii hooyadu waxay yacni qaybta ku leedahay waxa weeye waddankeeda dee qaybaha aynu sheegnay oo dhan bay walaal ku leedahay waana yacni qodobka koobaad ee ay tahay inaynu ka duulno haddii loo samaynayo xataa national plan lagu horumarinayo hooyada waxbaratay waa in aynu xoogga saarna inaynu hooyooyinka waxbarno si ay iskula jaan qaato bulshadeennu oo aynu u noqonno waddan dhinac walba ka horumarsan walaal
waan gartay in maxamuudow maxaa lagu tilmaami karaa ama heerka aqooneed ee hooyada waxbaratay marka la leeyahay intii leg baa lagu xadidi karaa inay noqoto hooyadu marka la leeyahay inay waxbarato bismillaahi raxmaani raxiim tusaale ahaan kale walal waxa weeye horta waxa la yidhahda baa jira illiteracy yani waxa weeyaan qofku inuu ka baxo waxna akhriyi karo waxna qori karo markaa eeg haddiiba sare loo qaado in hooyadu waxna qori karto waxna akhriyi karto oo formal school ay gaadhay hooyadaas waxbay garanaysaa oo tusaale ahaan kale ilmihii waxay ka sixi kartaa waxyaalihii yacni fududaayoo dhan ama xaggii hoose oo dhan waxaase ugu wanaagsan waxa weeye ugu yaraan minimum in hooyooyinka ay secondary level ka baxaan baa ugu fiican si ilmihii inta secondaryga ka horeysa ee uu teenage-ka yahay oo aanu ismaamuli karin ay yacni u noqoto mid iyadu maamusha horseeda tacliintii ka eegta yacni abaabulkiisa dhinac kasta dhinaca horumarka markaa runtii secondary level way fiican tahay elementary haddii ka baxdo way fiican tahay haddii ugu yaraan laakiin waxa weeye in hooyadu ay si fiicanna wax u qori karto si fiicanna wax u akhriyi karto bulsho ahaanna waxa laynooga baahan inaynu sare u qaadno heerka wax qorista iyo wax akhriska ee guud ahaan marka haddii jaamiciyad tahay hooyadiina dee kaba si fiican waxa laga yaabaa inay ilmihii ilaa heer jaamacadeed ay gaadhsiiso dee bini aadamkuna wuxuu value ku kala leeyahay waxa weeyaan hadba heerka tacliinta uu gaadho tusaale ahaan kale haddaad secondary tahay dee secondary baad يعني heerkaagu taagan yahay jaamici tahay hadaad masters tahay hadaad PhD bini aadamku value-ga iyo qiimihiisu mar kasta uu tacliinta sii barto sarus marka hooyadu inay waxaan jecelnahay ilaahay khayr si inay PhD gaadho sare u socoto laakiin halka ugu hooseeyna inay noqoto in hooyooyinkeenu ay u bataan qaar waxna qora waxna akhriya oo yaqaana sida wax loo qoro sida wax loo akhriyo laakiin tacliinta qofka bini aadamka heer kasta uu wadi karaa waqti kasta uu wadi karaa isagoo weyn buu wadi karaa marka runtii waxaan aad ugu dhiirigelinayaa waxa weeyaan hooyooyinka Soomaaliland inay wax bartaan ku dadaalaan inay wax bartaan si ay u anfacaan ubadkooda si ay u anfacaan dalkooda si ay u anfacaan hantidooda si ay qayb uga noqdaan caafimaadka guud ee bulshada aad buu mahadsan yahay maxamuud daahir cumar oo shahaadada labaad ee maamulka iyo maareynta waxbarashada ka qaatay jaamacadda Islamic University dalka Uganda qoraa badanka faaqida waxna ka qoraalimaha waxbarashada waxa uu uga warramayay faa'iidada hooyada waxbarata ay u leedahay qaranka inta barnaamijka dhigiyada mar kale aynu ugu kulmi doonaa ta ka horeysa dhammaantiinba Cabdilcasiis Caydid cilmada ku dhaafay nabadgelyo amaana laga ismaqlan buuxisa waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa